salaamullaah saaxiibayaal waa idin salaam dhamaantiin ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay web development. Waa maxay web development? Intuu u kala baxaa? Waa maxay teknoolojiyada ama barnaamijyada aad u baahan tahay inaad baratid si aad u samaysid website ama aad u noqotid web developer? Intaasoo idilba waxaan uga hadli doonaa muuqaalkan. Ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan. Web development oo laga soo gaabiyay website development waa samaynta website. Waxaan filayaa inaanan u baahnayn inaan kuu sharaxo wax la yiraahdo website, balse haddii aan kuu sharaxo web development waa shaqo la qabanayo oo ujeedkeedu tahay in lagu dhiso website ama bar internet. Website haddii la af Soomaaliya waxay noqonaysaa filayaa bar internet. Af Soomaaliga yuusan kula adkaan. Waxaan kala jeedaa computer ayaad soo qaadanaysaa, cilmiga lagu dhisi lahaa website-ka ayaad baranaysaa, kadibna waxaad samaynaysaa website-ki. taas waxaa la yiraahdaa web development. Laba nooc ayuu u kala baxaa web development-ga. Waxaa jira qayb la yiraahdo front end iyo back end development. Front end development iyo back end development. Midka koowaad oo ah front end development waa waxa qofka user-ka ah ama qofka isticmaalaha computer-ka isticmaalayo ama website-kaada isticmaalayo wax uu arki karo ee shaashada ka muuqdo. qofka barta cilmigan front endiga kaliya waxa la yiraahdaa front end developer. sidoo kale back endiga waa shaqada ka socota daaha gadaashiisa. user-ka ama isticmaalaha website-kaagana awood uma laha inuu arko shaqadaas gadaal ka socota. tusaale ahaan waa shaqada uu qabanaya server-ka website-kaada ku xiran iyo sidoo kale database website-ka ku xiran. labadaasba shaqaday qabanayaan qofka user-ka ama uu arki karo waxayna ka socdaan daaha gadaashiisa. qofka baranayo ama qofka barto back end development waxaa la yiraahdaa back end developer. haddii laakiin labadaba aad isku baratid front end iyo back end waxaa la yiraahdaa magacaaga full stack developer. awood waxaad u leedahay inaad samaysid front end website iyo sidoo kale back end. micnaheedu waxay tahay waxaad samayn kartaa website static ah sidoo kalena website dynamic ah, labadaba waad samayn kartaa. haddii aad la yaabanto waxa la yiraahdo website static ah iyo dynamic, hadda ayaan kuu soo wadaa ee hayga degdegin. waa labada nooc ee website-yada u kala baxaan, waa static website iyo dynamic. static oo ah midka koowaad waa website loogu talagalay dhammaan dadka isticmaalaya inay arkaan ama ay helaan hal adeeg ama hal wax oo isku nooc ah oo sidii ah oo aan isbedelaynin. tusaale ahaan website-ka haddii aad ka baxdid ama haddii aniga aan isticmaalo wixii aniga aan arkayay oo shaashada iiga muuqdo oo aan akhrisanayay ayuu qof kale hadduu soo galana uu heli karaa ama uu akhrisan karaa. dadka dhan way u siman tahay macluumaadkaas oo ma ahan mid isbedelayo oo dadkoo dhan waxay helayaan macluumaad isku wada mid ah oo website-ka isku jiro oo aana isbedelaynin. midka labaad oo ah dynamic waa nooca labaad. dynamicna waxaa la yiraahdaa wax isbedbedelo. waa website isbedbedelayo oo haddii aniga aan soo galo waxa ii muuqda uma muuqanayaan qof kale markuu soo galo wixii u muuqan lahaa. tusaale ahaan aniga haddii aan soo galo oo isla aniga intaan ka baxaadana mar kale aan ku soo noqdo website-kaas wixii haddaay ii muuqday iima muuqanayaan. sidaas si la mid ah aniga iyo qof kaleba haddii aan wada galno isku wax ma wada arkayno oo isku wax nooma muuqanayaan. waa website isbedbedelayo oo aan ahayn mid taagan oo halkiisi joogo. waa maxay teknoolojiyada aad u baahan tahay inaad baratid si aad u samaysid website? midka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa HTML. waa structure-ka website-ka. micnaheedu waxay tahay HTML hadduusan jirin website ma jiro. waa wixii lagu samayn lahaa website-ka oo structure-ka iyo qaab dhismeedka website-ka wixii lagu hagaajin lahaa waxaa la yiraahdaa HTML, Hypertext Markup Language. waa luqad lagu dhiso website-ka. sidoo kale midka labaad teknoolojiga labaad waxaa la yiraahdaa CSS. waxaa laga soo gaabiyay Cascading Style Sheet. waa style-ka website-ka ama qurxinta website-ka. website-ka oo CSS la'aan ah sidan ayuu u egyahay, asagoo CSS lagu darayna sidan ayuu u egyahay. midda saddexaad waxaa la yiraahdaa JavaScript. JavaScript waa ayadana programming language loogu talagalay in lagu sameeyo client side ama server side website. micnaheedu waxay tahay shaqadu ay qabanayso JavaScript-ga waxay tahay in website-ka ay ka dhigto mid lala falgeli karo oo qofka user-ka ama isticmaalaha uu la falgeli karo oo adeeg uu u qaban karo ama uu qofkii isticmaali lahaa website-kan uu la falgeli karo website-kaas. hadday noqoto labada dhinacba oo ah client side-ka
oo ah qofka userka waxa uu arkayo iyo sidoo kale server side oo ah waxa aan la arkayn ee daaha gadaashiisa ka socdo saas darteed JavaScript-ga waa ku samayn kartaa static website sidoo kalena dynamic-ga waa qasab technology-ga afraad waxa la yiraahdaa PHP waxa laga soo gaabiyay hypertext preprocessor ayadana waa server side language waa luqad loo isticmaalo in lagu dhiso dhanka serverka oo server side language ayaa la yiraahdaa taasi loogu talagalay in lagu dhiso dynamic websites-ka barnaamijka afraad waxa la yiraahdaa MySQL oo laga soo gaabiyay My Structured Query Language waa database loogu talagalay in lagu kaydiyo macluumaadka userka saas darteed haddii aad rabtid inaad samaysid static website waxa u baahan tahay HTML CSS iyo haddii aad u baahatid JavaScript sidoo kale dynamic website oo ah midka isbedbedelo waxaad u baahan tahay si aad u samaysid dynamic website HTML CSS JavaScript PHP oo ah serverki iyo MySQL oo ah ayadana database-ki meelaha aad ka baran kartid web development-ga waxa kamid ah website-yadan soo socda mid kale koobaad oo ah free code camp waa free barashadiisa waana midka ugu fiican ee aad ka baran kartid web development sidoo kale waxa ka baran kartaa Udemy oo ah asagana meel aad ka gadan kartid koorsada web development-ga oo waa lacag haddii aad ka gadatid koorsadaada halkaas aad ka baran kartaa sidoo kale waxaa jirta Coursera oo ayadana ah meel aad ka baran kartid sidoo kale waxaa jira Treehouse oo asagana aad ka baran kartid web development-ga sidoo kale waxaa jira Code Academy oo asagana aad ka baran kartid web development-ga sidoo kale waxaa jira W3 Schools asagana si free ayaad uga baran kartaa sidoo kale waxaa jira HTML website la yiraahdo asagana si free ayaad uga baran kartaa waxaan filayaa inaad macluumaadkaas wax badan ka faa'iiday wax su'aal haddii aad qabtid oo ku saabsan mawduucan comment igula wadaag waa kaaga soo jawaabi doonaa insha Allah haddii aad ka heshay muuqaalka like sar haddii jiraan asxaab danaysa barnaamijkaana la sii wadaag muuqaalka oo share garee si aad u hesho muuqaaladan iyo kuwa kale la mid ah channelka subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan mar walba muuqaalada aan soo gelino waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka iyo waqtiga aadna gelisay waan kaaga mahadcelinaynaa intaan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo